shaqaalaha dawladda. Dastuurka ayaa qoraya fariimo ku saabsan adeegga madaniga ah ama maamulka guud. Waxaa muhiim ah in la garto in dastuurku uu sheegayo tiirarka guud, balse ay tahay in baarlamaanku meel mariyo qaanuun qaran oo sheegaya shuruudaha qaanuuneed ee gaarka ah iyo waajibaadka looga baahan yahay shaqada dawladda. qaar ka mid ah qodobada dastuurka ayaa eegaya qiyamka iyo mabaadi'da aasaasiga ah ee lagu maamulo shaqada dawladda. waxaa kuwan ka mid noqon kara akhlaaqda shaqo, habsami u adeegsiga kheyraadka, in adeegga dawladda loo bixiyo si dhexdhexaad ah, cadaalad ku dhisan, loo siman yahay, aanan dhan loo xaglinayn, iyo la xisaabtan maaliyadda dawladda. waxaa ku jira dastuurka qayb si gaar ah uga hadlaysa maaliyadda dawladda ama xisaabaadka. waxaa muhiim ah in la ogaado in dastuurku dejinayo keliya nidaamka maaliyadda dawladda, loona baahan yahay in la meel mariyo qaanuun qaran oo si faahfaahsan uga hadlaya. xeer baarlamaan ayaa sheegaya qaybsiga cadaalad ku dhisan oo ay maaliyadda u qaybsanayaan xukuumadda qaranka, federaalka iyo dawladda hoose. waxa uu dastuurku dejiyaa mabda'a cadaalad u qaybsiga maaliyadda maamulada federaalka, gobollada iyo degmooyinka. dal walba ayaa go'aan ka gaaraya xeerarka xukuumadda uu asagu rabo. caadiyan waxaa dal loo qaybiyaa 3 xeer: qaran, gobol ama federaal iyo dawlad hoose. dastuurka ayaa tan aqoonsanaya isla markaana siinaya heer kasta awoodo iyo waajibaadyo. haddii heerka federaalka ay lahaanayo dastuurkiisa, dastuurka qaranka ayaa dhigaya in uu u baahan yahay in uu asaga la socdo ama waafaqo. dastuurka federaalka ama gobolku ma jebin karo ama kama hor imaan karo dastuurka qaranka. haddii kale, waxaa lagu dhawaaqayaa inuu yahay mid khilaafsan dastuurka.